السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعن وناكسن داودياشينا قيمها يقايها مدن muuqaal kanan maanta waxaynu kaga hadli doonaa oday faqiir ah oo ku nool dalka Thailand. muuqaalkan oo soo jiitay malaayiin dad ah ayaynu kaga hadli doonaa. fadlan subscribe saar si muuqaaladeenu u soo gelino maalin waliba aad u noqoto daawadaha u horeeya ee markaasi daawada. la wadaaga asxaabtaada wixii afkaar qaybta commentiga ayaad nagu reebi kartaa. waadna ku mahadsantiin sida quruxda badan ee aad mar waliba uga falcelisaan muuqaalada aan idin soo geliyo bogga YouTube-ka. ninkan odayga ah misna faqiirka ah ayaa waxa uu ku nool yahay nolol aysan bini'aadamku jeclaysanaynin. waxa inta ku sii dheer lugihiisa lug ka mid ah waa ay go'an tahay. waxa uuna isticmaalaa lug macmal ah oo ka samaysan caag, misna waa mid noloshiisa ku qanacsan. odaygan faqiirka ah waxa uu ka lahaa subaxdii si uu soo helo quudiyomkiisa ama waxa uu ku maareeyo noloshiisa. waxa uu sii maraa wadooyinka waaweyn ee magaalada, wuxuuna ka soo urursadaa caagado ka samaysan plastic una iib geeyaa. wuxuuna ka helaa lacag yar oo noloshiisa ku maareeyo. laakiin dadka qaar qalbiyadoodu waa kuwa ka adag dhagaxa, marmarka qaarna wuxuu kala kulmaa caqabado iyo dhibaatooyin. sidoo kale waxaa dhaca inay qashin ku shubaan isagoo caagado ka urursanaya wadooyinka. waxa uu sii maraa maqaayadaha isagoo carafta uu raashinku leeyahay ku soo noloshiisa maadaama uusan iibsan karin. maalin maalmaha ka mid ah waxa uu soo maray wadada dhinaceeda waxa uu ka arkay arday iskuul leeyahay oo wax iibsanaysa ilaa hal gabar mooye. ninkii miskiinka ah ayaa waxa uu dareemay inaysan awoodin gabadhan yarta inay wax iibsato. gacantiisa ayuu jeebka geliyay, waxaana uga saaray lacag isagoo aan ka labanlabeynaynin. waxa uuna gacanta u geliyay gabadhii yareed waa ay la yaabtay. gabadhii yareed oo faraxsan ayaa waxa u degdegtay meeshii wax lagu iibinayay. waxa intaa u sii dheer markii ay wax iibsatay waxaa lacagtii uga soo haray baaqi. haddaba ma laga yaabaa in qof miskiin ah inta uu ku siiyo lacag misna baaqi ku soo haro? dabcan jawaabtu waa ay fududahay, waa maya. maalmo kadib gabadhii yareed waxay si lama filaan ah ku aragtay ninkii miskiinka ah, waana ku faraxday. ilbiriqsiyo kadib waxaa ninkii miskiinka ah si naxariis darro ugu soo duldhacay nin tuug ah kaasoo ka soo xaday haweeney boorso. ninkii miskiinka ah waxa uu dareemay ninkan inuu tuug yahay oo uu boorsada soo xaday, waxaana kula dhigay boorsadii. ninkii tuugga ayaa waxa uu damcay inuu ka fujiyo boorsadii, waa kula dhigay, waa uu ka fuq waayay ilaa uu markii dambe af ka darbeeyo. xitaa waxaa laga jibiyay lugtiisii caaga ka samaysnayd. ninkii tuugga ayaa isaga tegay markii ay booliskii soo dhawaadeen. ilbiriqsiyo kadib waxa meesha yimaaday boolis iyo naagtii laga soo xaday boorsada iyo dad badan oo ku sushamoomay ninkii miskiinka ahaa. waxa ay ka qaadatay boorsadii, waxayna u fahmeen inuu yahay tuuggii maadaama ay ku arkeen boorsadii. laakiin xaqiiqda maysan ogaan karin allah mooye iyo gabadhii yareed oo uu shilinka siiyey oo taagneed goobtii ay wuxuu ka dhacay. ninkii miskiinka ahaa ayaa gacanta laga kitiinadiyey iyadoo aysan boolisku waxba hubsan, waxaana la geeyay xabsiga. badanaa dad aanan waxba galabsan oo xabsiyo mutaystay. ninkan miskiinka ah xitaa waxa uu sii dheer asxaan uu sameeyey dartiis ayaa waxa uu ku galay xabsiga. ninkii miskiinka ahaa ayaa iska ooyay, waxa uuna isweydiiyey ma asxaankii aad fashay ayaa abaalgudkiisu sidaa noqday mise qalbiyada bini'aadamka ayaa dhagax noqday. maalmihii ayaa tabay, gabadhii yareedna waa ay ka walwashay maadaama ay arkaysay xaqiiqada ka dhacaysa meesha, waxbana aysan u qaban karin. gabadhii yareed ayaa maalmo kadib waxay ka aragtay TV-ga barnaamij lagu taageerayo dadka masaakiinta ah ama fuqarada ee aan waxba haysan. jeebka ayay gacanta gelisay, waxayna ka heshay baaqigii ka soo haray ninkii miskiinka ah lacagta uu siinayay, wayna faraxday. gabadhii yareed waxay u carartay meelaha laga dirso telefoonada oo ay leedahay dowladdu, waxayna ka wacday hay-addii u doodaysay dadka masaakiinta ah oo ay lambarkooda ka aragtay telefishinka. waxa ay u sharaxday sidii ay wax u dhaceen. nasiib wanaag waa ay aqbaleen. markii ay baareen arrinta ay gabadha sheegaysay sida ay u dhacday, ninkii miskiinka ahaa markii uu xabsiga ka soo baxay waxa uu arkay dad badan oo bannaanka ku sugaya oo ay ka mid tahay naagtii boorsada laga soo xaday. hay-addii u doodaysay dadka masaakiinta ah ee aanan waxba haysan waxa ay u keentay lug caag ka samaysan iyo baaskiil ay ku socdaan curyaamadu. wuxuuna ogaaday in ay dunida ku nool yihiin dad qalbi jilicsan oo ay naxariistu ku dambeyso. sidoo kale waxa uu ogaaday dad naftiisa danaynaya in ay dunida ku nool yihiin maadaama uu dad la-aan yahay uuna faqiir yahay.
lacagtii uu siinayay gabadhii ayaa wadada u furtay uuna ku helay raaxo iyo nolol wanaagsan noloshiisa inta ka dhimanayd. haddaba ha isdhihin waxa aan haysto cidna wax uma tarayso, way yar tahay, waan ka xishoonayaa inaan bixiyo. waxaa sidaan u yar haddaan bixiyo dadkoo dhan baa isoo fiirinaya. waxa aad bixiso ayaa kuu noqon doona wadadii guusha adduun iyo aakhiro, ha badnaado ama ha yaraado. daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si muuqaaladeena dambe aad u noqoto daawadaha u horeeyay markaasi daawada. la wadaag asxaabtaada wixii afkaar qaybta commentiga ayaad noogu reebi kartaa. waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad mar waliba uga falcelisaan muuqaalada aan idin soo gelino boggeena YouTube-ka. mahadsanediin.